barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Yaaqshid oo ah degmada ugu baaxadda weyn degmooyinka gobolka Banaadir. Degmada Yaaqshid waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadkii 1971 waxay qayb ahaan ku taallaa 4 qaybood ee gobolka Banaadir. Qaybtiisa bari waxa ay xuduud la leedahay 7 degmo oo kala ah Warta Nabadda, Shibis, Kaaraan, Hiliwaa, Dayniile, Boondheere iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Degmadu waxa ay ka kooban tahay 6 waaxood oo kala ah Horseed, Kowda Luuliyo, Tawakal, Tawfiiq, Jungal iyo Heegan. Waxaa lagu qiyaasaa in ay degmadu leedahay 17 xaafadood. Waxa ku yaala suuqa labaad ee ugu weyn gobolka Banaadir ee Suuq Bacaad. Goobaha lagu garan og yahay ee degmadaas waxaa ka mid ah warshadii hore ee baastada, miisaanka dhuxusha, saraha caymiska, sarta xayla bariise, Hotel Ramadaan, Jiira Garoob iyo xaruntii hore ee telefishinka qaranka. Xarunta degmada oo ah tan ugu dhismaha qurxoon xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir oo la dhagax dhigay sanadkii 2018 ayaan weli xariga laga jarin. Waxaa degmada isku bedelay 3 gudoomiye degmo inta uu socday dhismaha xarunta degmada. Degmada waxaa fududeynta shaqada running cost ahaan ugu qoran $4,000 ma shaqeeyaan dhammaan waxyaha degmada. Waxaa laga jartay korontadii kadib markii maamulku uu bixin waayay lacagta. Gudoomiyaha degmada hadda waa Muuse Macalin Jimcaale oo xilal kala duwan ka soo qabtay xoogagga wadaniyiinta. Muuse waxa uu soo noqday hogaamiyaha xoogagga wadaniyiinta degmooyinka Warta Nabadda, Dayniile iyo Hiliwaa. 61 jirkan sida tooska ah ugu xiran xafiisyada sare ee dalka waxaa booska geystay gudoomiyaha xoogagga wadaniyiinta gobolka Banaadir Yuusuf Diiriye, wuxuuna ka mid yahay tiro gudoomiyaal degmo oo aan ku hoyan degmada ay ka taliyaan amni xumo ka jirta degmadaas awgeed. Gudoomiye Muuse ayaa ku hoyda guri ku yaala degmada Kaaraan oo dariskiisa ah, halkaas oo uu subaxaha qaar ka soo shaqo tago, subaxyada kalena uu iska seexdo, taas oo muujinaysa heerka amni darro ee ka jirta degmada uu maamulo. Maxay ka dhigan tahay in gudoomiye degmo uu dego meel ka baxsan degmada uu ka taliyo? Wuxuu dabagal ku hordhigay su'aashaas Professor Cabdi Ismaaciil Samatar. waxa weeye waa adigoo leh madaxweynahan wadan oo ahay wadan kalena waan ku noolahay. waa ruwaayadii waxaas waxa weyn hadii ila subi waaye amniga qofkii degmada gudoomiyaha oo ahaa una degmadiisii ku noolaan karin ama hana ku noolaan karin gabadho. waxa weeyaan marka waa in hawl kale la galay ma aha gudoomiye ma aha iyaduna ma aha. marka waxa weeyaan kalsoonida ugu horeysa waxa weeyaan qofkii meeshan lahaana maamulayo waa horta ku noolaan kara. haddii meeshu rabshad badan tahay oo dalaaya ka socoto in la rabshada la xasiliyo meelo badan la xasiliyo si qofkii meeshii dadkii uu dhex dego. haddii kale waxay noqonaysaa maxamuud oo waxaan ahay Soomaaliyan madax ka ahay Kenya waan ku noolahay. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmadu waa Cabdifitaax Axmed Cali. waxaa degmada keensaday Cali Yara Cali oo ay isku hayb yihiin, kaas oo lagu tilmaamo saaxiibka madaxweynaha. halka gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada uu yahay Maxamed Deeq Gaafow oo hore looga soo eriyay degmada Warta Nabadda oo ay magacaabistiisu hore ka soo baxday. waxaana la shaqayntiisa iska diiday maamulka sare ee degmada iyo kan waaxyaha oo uu arkayay carqalad ku soo korortay shaqadooda, taas oo keentay in laga rido degmada Yaaqshid. xiriirka gudoomiye Muuse taliyaha saldhigga booliiska degmada iyo labadiisa ku-xigeen ayaa ah mid aan wanaagsanayn, waxaana xogo la huba aan ku helnay in khilaafka u dhaxeeya uu salka ku hayo isfaham waa ka dhashay 28 qof oo lagu tababarayo degmada si ay uga howlgalaan waaxyaha degmada. wuxuuna markii hore ahaa qorshaha in 4.5 loo qaybiyo, balse gudoomiye Muuse ayaa afka u dhigtay oo dad ehel isaga la ah ka safay shaqadaas. taliyaha booliiska saldhigga degmada waa Dhamme Faarax Cadaani, wuxuu hore u soo noqday gudoomiyaha waaxda Tawakal ee degmada Yaaqshid. ma lahan wax khibrad ciidan ah, wuxuuna ka mid yahay tiro taliyaal booliis degmo oo laga safay darajo, tababar, shaqo iyo khibrad midna aysan ku helin. dabagalka oo xiriir la sameeyay dadka deegaanka ayaa u sheegay in uu yahay shakhsi ku takrifala awoodda ciidan ee loogu dhiibay inuu uga adeego iyaga. taliya Cadaani ayaa degmada ka qabto shaqo aan tiisa ahayn, waxaana ka mid ah in uu lacag ka qaado guryaha la dhisayo iyo kuwa la dayactirayo, taas oo ay shaqadooda tahay ciidanka ilaalada deegaanka oo ka madax bannaan taliska ciidanka booliiska degmada. dhowaan ayay ahayd markii uu hoygooda ka burburiyay qoys danyar ah oo degan xaafadda Jungal ee degmada Yaaqshid. taliyaha ayaa qoyska weydiistay lacag dhan $5,000, waa sida ay warbaahinta u sheegeen, taas oo ay caddayn buuxda u tahay in uu faraha kula jiro shaqo aan tiisa ahayn. gurigan nima beesa ku qaatay Faarax Cadaani la yiraaho waa u tagay aniga
beese isiiyo yidhi beese kuuma hayo beese laaluushana bixi maayaan idhi 5 kunaa la siiyey gurigayga 5taas kunaa dhulka lagu dhigay sharci dawla laguma dhigin warqad maxkamadeed laguma dhigin anigana waa la idilay dilkii igu yaalana haddaanan idin tusaayaa wax ilaahay soo reed qaaday ima imaan bini'aadam shaydaama ha idilay wuxuu igu dilay lacagtaydaan bislaysaa uu igu dilay lacagtiisa uu bislaysaayey shala lama kalaa jidkaas lay dhigay dhibka igu yaalna haddaanan idin tusaa dawladda sharafta leh waxaan ka codsanayaa gurigayga iyo maxkamadda dawladda sharafta leh maxkamadda waxaan ka codsanayaa gurigayga in lay dhiso maan 16 sanaan deganahay qof la arkaba maan anaa lay dhowaysaa behey maxamuud xaso cali oo qalad ku galay maxuuna wiilow naga watay wuu xirtay waa u tagnay wuu soo deeyay maalinta maadaan naqanay wuxuu dhahay gurigiina taagtaagin oo ka bacdaartay 5 kun oo lacagna siiya 5 kun oo lacag meena hadaan anaga mana u waadno masaakiinana 5 kun qaato gurigiina 5 kun hadaan idinka dhiibi karin dad ay isiyaa 5 kun waan idinka jabaaho yiri gurigoo yimid ciidan oo soo diray waa jajibi waa nagu dulqaad dawladda sharafta leh waxa ka codsanaynaa haddii masaakiinta ayna cadaalad inta loo shaqeeyo masaakiinta ummadda laga nabadgaleen degsadegyada iyo degmada loo furtay in masaakiinta lagu handado ee lacag laga qaato ee haddii laaluush laga waayana hoyga ay ku hooyaan laga dudumiyo hadday madaxda la qabto saldhigyada iyo degmooyinka waa inay ka soo hadlaan madaxda sharaf amniga degmada ayaa ah mid faraha ka baxay waxaana la isku dilaa aana qabiil iyo arrimo dhul la xiriira waxaa degmada buuxa ciidan aan ka amar qaadan taliska dadka shacabka ahna qaati waxa ay ka taagan yihiin rag ku hubaysan bastoolado kuwaas oo ka qaata taleefanada gacanta iyo wixii la mida 7 Abriil ayay ahayd markii arrimo la xiriira aana qabiil ay u dileen askar ku labisan dharka ciidanka dawladda Dr. Xasan Xayow oo ahaa samafalo dadka deegaanku ay aad u jeclaayeen waxaa sidoo kale dhawaan lagu dilay gudaha degmada Yaaqshid oo ay dhaqameed iyo askari ilaalinayay markii la damcay in la duugo meydadkoodana waxaa la soo weeraray dadkii ku howlanaa dhaqidda meydadka waxaa lagu dilay halkaas qofkii dhaqayay meydka iyo 3 qof oo kale taasoo kaaga filan inaad ogaato heerka amni darrada ka jirta degmada aan ka hadlayno ee Yaaqshid canshuurta degmada looma qaado si sax ah xogo uu helay barnaamijkan dabagalka ayaa sheegaya in suuq bacaad oo ah suuqa labaad ee ugu weyn Muqdisho iyo suuqyada kale ee degmada 25% kaliya si sax ah canshuurta looga qaado ama looga ururiyo halka inta kale ay si hoose ugu heshiiyeen ganacsatada suuqa taliyaha booliiska degmada ee xilligaas jooga askarta ururisa iyo gudoomiyaha isaguna markaas maamula degmada suuqa ayaa noqday mid isku raran ah waxaana sabab u ah gaari gacmo lagu gooyay jidadkii laga soo geli lahaa iyo kuwii laga bixi lahaa kuwaas oo aan canshuur akoonada dawladda ku dhicin ay ka qaataan askarta haddaba maxay tahay in loogu qabto shacabka canshuurta laga qaado meegyada guud ayaa canshuurtu dabartaa waana waxbarashadii waa caafimaadkii waa ammaankii waa nadaafadii way badan waxaasoo dhan canshuurta la qaadaa la dabaraa marka muhiimaddu waxay tahay waxaa loo baahan yahay in la yimaado xirfad hadda taala mid wax yar ka sarreysa marka adeegii aan u baahnayn intii minimumka ahayd markaan sameeyno ayaa waxaanu sameyn karnaa inaan ama canshuuro cusub keenno ama kuwii hore kordhino ama dhinno ma fahanti laakiin marka hore adaa waxaa tiri waxaan u baahanahay caafimaad waxaan u baahanahay waxbarasho waxaan u baahanahay ammaan waxaan u baahanahay nadaafad waxyaabahaas markaad tiri canshuuraha qaar baa mid gaara loogu talagalaa midaan hadda road tax la yiraahdo kale magaceedu baa saarto waa midii wadada waay tii wax kaaga soo haro meel kale waa ku dabaran kartaa wax diiday male laakiin taasaasay wax yiman tahayba nadaafadda ama magac canshuureed baad ka dhigi kartaa ama khidmad baad ka dhigi kartaa ayadana taasa ku aaday guryaha mid laga qaado adeegii guryaha xaafadda ayaad ku dabaraysaa xaafadeena leedahay ammaan leedahay waxyaabaha noocaas oo kale way ma jiro isxilqaan iyo isku xirnaan ganacsatada dhexdooda ah si ay isaga hagaajiyaan jidadka dhex mara suuqa waxaa burbursan laamiga soo gala suuqa oo ay dhibaato badan ku qabaan gawaarida xamuulka ah oo inta badan ku rogmada waxaana qofkii dhex mara suuqaasi uu dareemi karaa in aysan jirin wax horumar ah haba yaraatee waxa ay biyo dhex fadhiyaan muddo 6 bilood ah inta u dhaxaysa isgoysyada Fagax Sanca iyo Hotel Lafweyn oo loo yaqaano xaafadda CC shacabka degmada iyo kuwa iskaga kala goosha degmooyinka kale ee magaalada ayaa dhibaato badan ku qaba gawaarida waaweyn waxa ay maraan xaafadaha jidcadayaashiina waxa buux dhaafshay bacaad
bulshada degmada Yaaqshiid ku dhaqan waxaa isku biirsaday dhismaha xaruntii degmada oo aan dhammaad lahayn, xarumo waaxidadii oo aan shaqo ka socon, saldhiggii booliiska ee degmada oo aysan ku haysan wax amni ah, canshuurtii oo laga qaado, jidadkii oo xiran iyo MCA-yada degmada oo aan shaqayn. magacaygu Cali Aadan Muumin oo ku waramayay.